بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxa leeyahay dalkani waxa haysata abaar ayaa ka jirta abaartaasi waxaanu ku duceynaynaa in Ilaahay naga dulqaado adduunyada maanta sixir barar baynu ku hadlaynaa iyo cunto barar baa jirta ma aha mid inaga inoo garay waa mid aynu adduunka la qabno laakiin waxa jirta inaga lafteena waxaad moodaa xaqii sharciga in aynu xigtiirayno haysanayno ku faani jirnay Soomaaliland waa nabadgelyo waxaynu adduunka ka iibinaana waa nabadgelyo maanta waxay noo dheer adduunkii oo wax walba ka qaaliyoobay dagaal waaweyn ka socdaan ayaynu ognahay waxa kale inoo ognahay in abaari ay haysato maanta waxay nagu dhibaataa nabadgelyadeennina inaan wax yeelno inaga oo isku haysana sharciguna wuxuu ku qurux badan yahay in sidii sharcigu yahay loo maro madaxweynaha sharciga ka sareeya xisbiyada sharciga ka sareeya mucaaradka iyo muxaafidba labadaba sharciga ka sareeya labaduba anagu waxa leenahay sharciga hal la ilaaliyo shalay toole maxkamadda ayaa loo gudbiyay waxa intii qof ay u gudbisay wayna ogeyn waa la isla ogolaaday waa la wada hambaliyay maxkamadda sare go'aanka ay soo saartay muxaafidkaas hambaliyay mucaarid baa hambaliyay aqoonyahan ka hambaliyay dumar iyo dhalinyaro iyo aqoonyahan iyo culimo waa lagu nastay go'aankaasi waa la wada hambaliyay maanta waxa ka soo noqda anigu waxa leeyahay inay tahay waxa loo baahnay waxa weeyaan qas iyo dhibaato dan uguma jirto dalkan iyo nabadgelyadeenu yiminayna nabnabka iyo qof ay dhibaato naga soo gaadho ama wax kale soo gaadho ee waxaan leeyahay war loo noqdo hay'adaha sharciga oo hadii uu qofku wax tabayo waa binaadan xaq ayuu leeyahay inuu tabo laakiin waxa looga baahan yahay in halkii sharciga maxkamaddii sare lagu noqdo war waxaan waxa weeyaan madaxweynaha iyo waxa laba qodob baa la isku haystaa 6 bilood ka hor ururada hal furo iyo waxa la isku haystaa 13 November madaxweynaha waqtigiisa uu ka dhayahay waa rintooda madaxweynaha 13 bisha November ayay kaga dhantahay haday kaga dhantahayna maalin sharci darro ah kuma darsan karo laakiin waxa uu sheegayaa qolada kale mucaaradka iyaguna waa 6 bilood ka hor ayaa la yiri ururada hal furo ururada la furo maanta taasa taagan taageera annaguna beritoole waxaanu idin la taageeraynaa inuu madaxweynuhu maalin ku darsanin sharci darro maalinta ay gaadho waqtigeeda oo uu doorashada madaxtooyada qabto laakiin maanta hadii aad sharcigi sii burburisaan maxaa lagu gaarayaa 13 maxaa lagu gaarayaa may kolka waxa loo baahan yahay in la ilaaliyo nabadgelyada nabadda dadka ku nool nabadda kuguma noola dalkeenna waxaynu ibnaa waa nabadgelyo cid kasta oo mucaarid leh oo muxaafid leh walaalayaal waxa leenahay ha loo soo noqdo sharciga dadka yaan la dhibin hooyooyinka caruurta dhalinyarada wax magaratada ma aha in loo yiraahdo dab baan idin gelinaa war dab adeer ma kari karno horaan u soo galnay ninkii ay ku cusub tahay waxaanu idin sameeynaa ee balaayada aad yar jecelo bal garoon aad isugu soo baxdaan qolooyinka mucaaradka iyo muxaafidka ee kursiga kala ridanaya waxa loo lahaabay inta garoonka isku saarno tira go'an soo saara dabeedna halkaas ku yar jimicsada bal sidii istunkii qolooyinkii loo dhigay way istumaan halkaas yar tuntaano bal waxaan doonaysan iyo dhiiga doonaysan halkaas ka soo yar daadisan dabadeedna waan idin kala qabani saas ayaa istunka aad ku heli doontaan iyo dhiiga doonaysan laakiin dhiig shacab oo la geliyo annagu marnaba raali kama yihiin xildhibaanada waxa ka codsanaya maanta waxa jira baa lagu yiri dhibaatadaasi aad iyo aad baan uga xumahay dadkay soo gaadhay aad baan uga xumahay waxa weeye waa kugu dhimayo ka dhimay nin kastoo dhaawacma waa mid aniga wax yeelaya waxa ayaa darra xildhibaankii shalay toole isagu qodob ka saxeexay ay yiri ururadu way fureeyeen inuu haddana maanta mucaaridka inuu haddana yiraahdo waan mudaharaadaya waxyaabaha aan la yaabay ayaa ka mid tahay shalay isaga furay oo yiri ururadu way fureeyeen oo ku ololeynayay maanta mucaaridkii horboodaya warniyo bal sharciga hal noqdo caadifada la iska daayo sharcigaana cid walba ka sareeya haday tahay madaxweynaha jamhuuriyadda haday tahay nin kale oo xilhaya haday tahay nin kale oo mucaarida waaryaal laga xanaaqin ururadii way furan yihiin iyo 15 November ya 13 November yaa laga xanaaqine ha loo soo noqdo sharciga ilmaada reyaal ma kari karno dhibaato maalin ba nin ladnaystay oo kolku kursiga ka dheerga waanti ku sameystay inuu yiraahdo kaalay oo mudaharaado dabka ugu guro ma kari karna sidii xaydha weyntii war kaalay oo sharciga u noqdo maxkamaddii saraha loo noqdo ayaanu leenahay